kuwan waa barankiyada ugu cabsida badan adduunka. Abow malaha nasiib ayaad leedahay haddaadan ahayn xarfaankan ama xarfaankan kale ama waad fahmaysaa waxa uga dan leeyahay maadaama wiishku yahay meel ay dad badan ka cabsadaan haddana haddii barankii lagu sameeyo waa cabsi caadi ah. showgan Jabaneeska ahi igu soo orod maahan waaba argagaxe kaasuna si cajiib ah loo soo diyaariyay. haddaba xariifkan ayaa u tilmaamaya inay gudaha u soo galaan wiishka hal tilaabo عجائب شيخو ثاني وامid aadan ka soo waaqsan karin iyadoona sababtu tahay lama filaanka argagax wata intaas kaliya xitaa ma ahane sidoo kale istaraxiis kale ayaa u sii harayba iyagoo waliba dheg la qabtaan lahayn ay goobtii loogu talagalay imaanayaan alla maxaa cabaad ka soo yeeray. goobtan dalxiis ee ku taala dalka China waa wada muraayado ka samaysan waxaase kaaga daran waxaa ku xiran codad muraayado jajabaya abow walibana waa meel sare. haddaba xarfaanta xaalkoodii ayaa ilbiriqsiis ku bedelay runtii meeshaan oo kale haddii baraanki lagu sameeyo waa loo badbaadiso adoonkaagi ayaan ahay. xarfaankan kalena wuxuuba wax yar u jirsaday in ay baarkiisa uu ka dhacaba ama istiida oo lugta ku dhig ama ayru soo qof yahay ama idinkana wax iska duuba tan waa lidinka gashtay wax fiican ba mise waa madaalo adaan ku daayay xarfaan bal sawiro adoo fadhiya xafiis maran walibana wax sugaya oo aysan ka qasanayn ayaaba si lama filaana wax u furmay miiskii ku ag yaalay. cajaa'ib shiikhow haddaba maxaa samayn lahayd? dadka qaar cagaha ay wax ka dayi lahaayeen iyagoo waliba xawaara dheer ku soconaya dadka kalena meesha ay sii fadhiisan lahaayeen. allow alle malaha inay sidijiyaan ayaaba khalad ahaydba wixii ku dhacay wax ku qaadasho ay leedahay oo inta aan waxaan ku dhicinba waxay ahaayeenba dad ifaya oo kreem soo marsaday oo maasha Allah xarfaankan nasiib ayuu lahaa inuu qabo kiyaalaha haddii kale adigu sii buuxi meelaha bannaan. waagii hore waxaa kaliya oo rabtay markaa rabtay inaad baraanka samayso wuxuu ahaa teleefon kaliya taasoo yara fudeed balse haddaa rabtay inaad samayso baraanka la jeclaysto waa inaad dhanka suuqa is afgarataan calaanshaan kharash gelisaa oo sida camal oo kale aad dinosaur keentid. runtii tan cabsi way dhaaftay oo haddii xayawaanka dinosaurka ahi dhankaaga u soo jileeco xaaladaadu waxay noqonaysaa bariga dhexe micnaha ma sahlana camal. xarfaantaana kufow iyo xaaladan kuu sheegay ayay ku jiraanba ogowsi xayawaankan wuxuu adduunka ka dabargocay malaayiin sano ka hor. allah keli inuu ku soo ceersado ayaa waxay tahayba qalbi foq. kolay wadada kuu furan waxay tahay inaad orodid uun. had iyo jeer waxaa jira habab badan oo aad u samayn karto waxaad jeceshahay laakiin kaliya dooq wuxuu ka yimaadaa dhankaaga. haddaba kii hore hadduu ahaa in wiishka markuu qofku tilaabo hore u sii qaado inuu la dumo ama hoos ku dhaco tan way ka duwan tahay oo shirkadda LG waxay keentay tiifiyo badan oo ka qayb qaadanaya baraankigan iyagoona sameeyey sida in wiishku uu kula noqonayo mid hoos u dhacaya. dadka qaar ayaaba isku dayaba inay meel nabadgelyo istaagaan balse ma nabadgelyo jirtaahe waa wadna xanuun caadi ah. cajaa'ib sheekhow ma daawatay filimka lagu magacaabo The Ring? allow alle haddaad daawatay waxaad og tahay siduu cabsi u yahay bal qiyaas gabar cabsi ah intii ka soo dhex baxdo TV-ga una soo dhaqaaqdo dhankaaga maxaa dareemi lahayd? haddaba waa sida ku dhacaysa macaamiishan oo macaamiisha markay ka jiideen TV-ga indhahooda ayaa kor loo qaadaya iyagoona ogeyn. dabcan dadkan midba xaaladiisii ayay noqotay qaarna si degan qaarka kalena warcaliyo carar ayaa ka dhacday. cajaa'ib sheekhow bal qiyaas shirkadda tiknoolajiyadda maxay tahay habka ugu wanaagsan ay ku horumarin karto TV-yada kaasoo noqonaya midka ugu tayada sareeya suuqa. dabcan shirkadda LG xarunta maamulka ee ku taala dalka Chile ayaa samaysay baraanki la yaab leh. waxay iskugu yeereen dadka wareysi shaqo iyagoona xafiiska ku xidhay kaamirooyin qarsoon waxayna sidoo kale dhanka daaqadda ku rakibeen TV si uu u ekaado daaqadda rasmiga ahayd. kadib TV-ga ayaa laga daarayaa muuqaalo argagax leh badankoodna xaaladooda ayaa noqotay mid jahwareer ah ilaa ninkan mooyaane malaha waa fahmay. dadka qaarkood aad ayay u yaqaanaan sida loo sameeyo riwaayadaha iyo wixii la halmaala balse TNT Network waxay samaysay bandhig inuu soo jiitaan sanadii 2013 shirkadda ayaa meel dhigtay batoon weyn oo in la taabto loogu talgalay waana gudaha dalka Belgium iyadoona lagu casuumay dad aan waxba la socon. dadka qaar ee socodkooda iska wadanaya halka kuwa kalena ay taabanaya batoonka. intaa wixii ka dambeeyay wixii dhacay waxay noqotay mid la yaab ku noqotay qof kasta oo goobta joogay iyadoo goobta ka qarxaday iska horimaad xabad la isku adeegsaday ayaaba qoftani ee mootada wadata si nabad leh goobta ku maraysaaba. cajaa'ib sheekhow qaybta ugu fiican ee muuqaalka waa falcelinta dadkii taabtay batoonka halka ka qaybgalayaashana ay fajac ku noqotay waxa goobta ka dhacaya. dabcan qofkii taabtay batoonka ayaa waxaas oo dhan sababay. baraankigan waxaa loogu dal leeyahay in lagu ogaado falcelinta dadka kadib markay ku dhacaan waxaad moodo koolo oo qofka ku dhigayaba kaasuu qofka ku dhacayo dhulka
bal sawiro adigoo ka howlan howlahaga maalinle aaba hal daqiiqo gudahoodba waxaa kugu dhacay waxaad filanayeen oo ah in sagxadda dhulka ayba kugu dhigtayba balse waxaa jira qaabab kale oo baraankigan loo sameeyey qorshaha koowaad waa in wadooyinka dadka maraya lagu sameeyo taas oo maalintooda looga dheelayo sidoo kale waxaa jira hab ka duwan habkan oo ah qorshaha labaad oo ah in albaabka xiran gadaashiisa la dhigayaba dabcan qofku markuu soo galo ayuuba halkaas ku xayirmayaaba oo bariba ayaa dhulka loogu dhufanaya ajaayib shiiqow qaabka in wax loo cabo waa qaab aadan filanayn inay wax kugu dhacayaanba oo halkan ayaad waxaa ka cabisaa ama ka fooldhaqanaysaa biyo balse biyo aad u xawaaro sareeya ayaaba afka kaga buuxsamayaba waxay ahaataba halkan ayaa loo diyaariyey meelo lagu weji dhaqdo kaasuu ka faa'iidaysan karo qof kastoo halka maraya laakiin muhiimadda laga leeyahay ayaa ah in markuu qofku u soo dhowaado uuna furo halkii uu ka filanayay biyo dareeraya ayuu wuxuu la kulmayaa biyo tuuryo ah abow sanka iyo wejigaba ayay xawaaro aad u sareeya kaga dhacayaan malaha mar dambe iskuma aadan dayadeen Indiana Jones Films waa aflaam inabaan caadi ahayn balse aflaamtaba waxaa jira daqiiqado ah ku siganayso inaa wada naftaada dabcan waxaa rajeynayaa inaad fahamto waxaan uga dalnayahay haddaba gabadhan ayaa iyadoo labada ka soo baxday waxaa ceersaday shaygan xajmiga weyn oo aadba moodaba inuu yahay dhagax camal oo gabadhii waa laga dhibcaarursaday waxay ahaataba ilaa markii laabadda ilaa ay dhulku dhacday xaaladda orodkaahi waxa u dheeraa argagax ugu yaraan way u naxariisteen haddii shay khafiifa ay u keeneenba xitaa dunida baraankiyadu waxaa jira baraankiyo aad iyo aad uga fiican kuwa kale oo cajiib ah runtii haddaba shirkadaha sameeya aflaamta waxyaabaha aan la arkin muuqaal ahaan dabcan aad ay ugu fududahay inay ka cabsiyaan dadka balse xoogaa way ka yara duwan tahay marka laga hadlayo tan filimka iyo tan caadiga ahi inta wareysiga lagu jiro ayaa waxaan la arkayn wax dhaqaajinayaanba taasoo argagax ku noqotay qof kasta haddaba waxaan dhihi karnaa ma ahan wareysigii ayba filanayeenba iyagoo qolka wareysiga ka dhigay in sidaan waxaan la arkaynba wax dhaqaajinayaanba runtii waa argagax oo cadabsi ayaa u dheer allah oo qofka qolka sii jooga bilad ayuu u qalmaa haddaba haddii aad leedahay shirkad soo saarta cuntooyinka sida yogurta aadna rabti inay ku kala kacdo waxaa khasaba inaad u samaysato xaysiis taasna waa isku raacnay balse maxay noqon kartaa xaysiiska ugu fiican ee shirkadaada ku heli karto dad badan oo cuna cuntadaada ma wax u eg xayawaanka dubka abow haddaba Chobani oo ah shirkadda number 1 ka ah samaysiga cuntada yogurta ayaa waxay shaqaale ka dhigtay qof loo soo ekeysiyay xayawaanka dubkahi ma xuma wuxuuna ka naxinayaa dadka soo maray wadada kuwaas oo aan warba u haynba dabcan way u shaqaysay malaha waxaysan fahansaneen xaysiiska ugu fiican kuna habboon shirkadooda